بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفديجين الشناد كميدا فديدي كساب صناي سؤالها رمضان انت بدان اتكلا سعوتين كنالك حكتا سلفك كميدا كنالدا khayrka iyo wanaagga ummadda usoo bandhigo aan insha allahu tacaala walaalada ku xiranna aan ka codsanaynaa inay ummadda kala gaarsiiyaan ayagoo ku camalfalaya xadiidka nabiga ahay calayhi salaatu wasalaam, qofkii khayr qof xusuusiyo ka faacilihi kii sameeyey ayuu la mid yahay, addaalu cala alkhayri ka faacilihi. fadhigeennan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa su-aalo 5 ah ee ragga iyo gabdhaha walaalada ee ku xiran kanaalkan qaybo ka mid aynu soo weydiiyeen. su-aasha koowaad saa'ilka waxa uu leeyahay, soonka niyadiisa ma wax la akhrinayo ayaa jiro oo loo baahan yahay oon laga tegi karin, base waxaa ku filan in uu niyeysto oo qalbiga ka niyeysto? jawaabtu waxaan leenahay wax shardi oo ku xiran ama shardinayo in wax lagu dhawaaqo ma jiraan qadcan asal ahaanba. in carabka kelix lagaga dhawaaqo wax laga aqriyo qalbiga aan laga niyeysaninna maba ku filnaba. niyada iyo soonka asixitaankiisa kaagama filno. culimada qaarkood oo qalbiga markii laga niyeysto waxaa lagu dara istixbaabsadeen waa jiraan oo sunno u arkeen walow aysa daliil lahayn. culimadeenna shaaficiyada qaybo ka mid ah, laakiin dhammaantood waxay isla ogol yihiin in carabka lagaga dhawaaqo keligiis inayna ku filneen, shardina ayna ahayn, sida imaamu nawowi raximahu llahu tacaala iyo keyrkiisba ay caddeeyeen. marka inaad qalbiga ka niyeysato inaad beri soomayso ayaa kaaga filan. su-aasha labaad saa'ilka waxa uu leeyahay, inaan suxuurto oo inaan biri soomay aan u suxuurto darteed ma igaga filan tahay niyada, mase suxuurtiina waa gooni oo niyadina waa gooni? jawaabtu waxaan leenahay sida muctamadka madhabkanaga uu muctamad ku sheegay alkhadiib ishbili kitaabkiisa almuqni, imaamu nawowi raximah llahu tacaala ana uu ku sheegay rawdada inay tahay sida xaqa inay tahay uu ku sheegay. waxaa weeyaan qofka haddii uu suxuurto una suxuurto inuu biri soomaayo, ama waxyaalaha qaarkood uu ka joogsado ee aan u bannaaneen fajarka markuu dhashay kadib inuu la yimaado, ugu joogsadana biri ayaad soomaysaa, way kaga filan tahay arrinta iyada oo niyada way kaga filan tahay kala. maxaa yeelay sidaasuubuu ku niyeysan yahay, waxa kicinayo inuu suxuurto ku keenayaba ayaaba niyo ah. marka waxaan leenahay haddii qofka inuu biri inuu soomay u suxuurto way kaga filan tahay, ay niyo kaloo intaa ka dheeraad ah loogama baahno. saa'ilka saddexaad waxa uu leeyahay, ninka ragga hadday janaabo ku dhacdo ama xaaskiisa ha u galmoodo ama si kaleba ha ugu dhacdee, ama haweenaydo dhiigga caadada ah uu ka go'o, dib ma u dhigi karaan qabayskii ilaa fajarka laga gaarayo?
jawaabtu waxaan leenahay marka koowaad ninka ragga ee janaabada ay gashay si kastaba ha ku gashee inuu dib u dhigo ayadu way u bannaan tahay. waxaana laga qaatay xadiidkii ahaa caaisha radiallahu tacaala canha iyo uma salama laga wariyo ayaa laga qaatay oy sheegeen nabigu calayhi salaatu wasalaam fajarka inuu soo gaari jiray wa huwa junubun min ahlihi huma yaqtasilu wa yasuum, isagoo ahalkiisa xagga janaaba ka qaba nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu fajarka soo gaari jiri kadib uu qabaysan jiri waana soomi jiri. marka ilaa fajarka laga gaarayo inuu dib u dhigto qofka ragga ah ama haweenaydaba qofka janaabada qabo ayadu taa dhib ma laha. culimmadu qaarkoodna ijmaac bay soo guuriyaan oo xadiidka ay ku sii xoojinayaan. culimmada soo guuris waxaa kamid ibn alcarabi fi kitaabihi axkaam alqur'aan. ibnu qudaamo wuxuu ku sheegay inuu yahay qowlu caamati akthari ahli lcilm, ahlucilmiga badankooda inay qabaan buu ku sheegay, qaarna ijmaac bay ka dhigeen. alxaafid ibn xajar alcasqalaani fi lfatxi ilbaari buu ku sheegay. marka masaladaas ayadu way bannaan tahay, daliilkaana way leedahay. culimmadu qaarna sidaasay ijmaac ama qowl akhar ugu sheegeen. amaa gabadha xaayidada ah inay dhiigga qabaysigiisa dib u dhigto iyadana waa u bannaan tahay. culimmada qaarkoodna waxayba soo guuriyeen masaladaas itifaaq almadaahib alarbaca, madaahibta arbacada inay intooda badan ama ay isku wada raacsan yihiin bay soo guuriyeen. sida macnaha waxaa weeyaan waxaad ka eegi kartaan muqni ibnu qudaama iyo almajmuuc linnawowi iyo mabsuudki ah iyo keyrkood baad ka eegi kartaan. taana marka way u bannaan tahay. masaa'ilka afaraad wuxuu leeyahay ma qabaysan karaa anoo sooman ama biyo intaan isku shubo ma isku qaboojin karaa anoo markaa uu kuleyl yahaayo ama oon yahayo iskaga dejinayo ama si kalaba iskaga qabaysanayo wasaq iyo wixii lamid a ka qabaysanayo. jawaabtu waxaan leenahay way u bannaan tahay qofku sooman inuu qabaysto ama biyo isku shubo, madax uu iskaga shubo ama jirka oo dhan buu iskaga shubo kuleyl isagoo iska dejinayo ama oon hayo iska qaboojinaya. waxayna culimmadu u daliishadaan xadiidkii musnadka axmed iyo keyrkiisba ku sugan oo bacdi asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam, saxaabada nabiga qeybo ka mida laga wariyo. xadiidkaas uu sheegayo in saxaabada qeyb ka mid a inay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo sooman kadibna biyo isku shubayo oon qabti ama kuleyl qabti dartiis inay arkeen. waana xadiid sanadkiisa uu saxiixa yahay wey. xadiidkaasaa marka u daliil ah qofka biyo waa isku shubi karaa waana isqaboojin karaa, waxbaa culeys eena masalada ma laha. masaa'ilka ugu dambeeya oon fadhigan kusoo qaadanayna waxa uu leeyahay qofka cuntada karinayo haddii uu u baahdo inuu cuntada dhidhimiyo si macnaha cuntadaas uu ogaado xaaladeeda meeshii marayso macmacaan tahay mase waa diyaar bay noqotay, si uu ogaado haddii uu u baahdo ma dhidhimin karaa buu leeyahay cuntada. jawaabtu waxaan leenahay arrintaa wax dhib ee kuma sugno cinda akthar alculamaa. culimada badankooda siday qabaan wax dhiba inayna ku sugneen way u bannaan tahay. laakiin waxaa shardi ah in ay iska ilaaliso qofkaas ama gabadhaas ama ninka qofka cuntada karinayo ama cuntada dhidhiminayo inuu iska ilaaliyo in cuntadaas uu liqo, ee wixii uu dhidhimi waa inuu iska soo tufo wey. luluqoshada biyaha caadi weysada lagu luluqonay lamid tahay, waxba culays eena malaha. fadhigeenni shanaad oon maanta kusoo qaadanay su-aalaha maxaa la yidhaha shanta ah intaa ayaan kusoo koobaynaa. waxaan iin rajaynayaa insha allahu tacaala nabadgelyo iyo caafimaad baan iin rajaynayaa meel kastood macnaha dunida kaga sugan tihiinba. masaa'ibtan socotana iyo cudurradan
in ilaahay subxaanahu watacaala annaga iyo ahalkeennaba uu naga badbaadiyo ayaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu watacaala. khayrkana ha laysgaarsiiyo, hana laysku garab istaago. hada wabillahi towfiiq, wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxammadin wala aalihi wasaxbihi wasalam.